runtii aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo wafdigii la socdayba inaan magaalada muqdisho oo ah caasimadii dalka u nimaano dalka iyo marxaladda uu marayo wixii aan ka geysan karno oo gacan ah inaan ka geysano inkastoo aanan rabin inaan iniga sheekeeyo intii looga sheekeyn lahaana ayn ahayn maraaxiilshii kala duwaneedaan soo marnay oo marba marka ka dambaysa ay soo roonaanayso laakiin haddana meeshii noo habboonayd ma joogno arrintaas runtii waa arrin culayskeeda leh cid kalena aynu u maqnayn oo cidna uma maqna ceelno muuqdan baan la dhihi jiray intanba iyo inta la mid ay sugaysaa inaan xaalad dabiiciya ku noolaano oo dalkeenna meeshaan doonna ka marno oo si walba oo qofku munaasab ugu tahay xaaladahan u wajaho waa sidii wanaagsanayd runtii waxaa nasiib darro ah in arrimo siyaasadeed naftirkooda ay waxyaabaha cakirmaya ay daraf ka yihiin oo dadka siyaasiyiinta naftirkooda mas-uuliyaddaas ay qaadeen marka laga tago hadda dadka nabaddiidka ah oo iyagu qorshahoodu cad yahay haddana waxaan aada loo fahmi karin kala xirxirnaanta dalka ka jirta iyo caqabadaha siyaasadaha abuureen ee amniga isku beddelay dalka ka jirta ma aha wax qiil loo heli karo runtii waa wax u baahan in la iska warsado oo xal laga gaaro arrimaha amniga marka la isku soo duuro oo kuwa xataa nimankan argagixisada ah lagu daro arrimo siyaasadeed bay salka ku haynayaan isdiidooyin iyo aragti kala duwanaan heerkay doonta ha gaartay laakiin dadka Soomaaliyeed waxay isku waafaqsan yihiin arrimaha dibadda siyaasadda ka yimid ee ururada argagixisada wadaan inaysan ahayn arrimo siyaasadeed oo Soomaaliyeed oo meel looga soo wada jeesto taas waxaan u malaynayaa la iskuma khilaafsana hadda laakiin maxaa hortaagan marka oo la isku soconaya ma dad yar oo aragtidooda iyo dadka hogaaminaya dibadaha ka yimaadeen iyo wiilal dhalinyaro oo Soomaaliyeed ay duubsadeen baa Soomaalida 20 milyan ka adag iyo dawladooda iyo dawladahooda state-ka wax aqliga bini aadanka gali kara maaha marka waxay u muuqanaysaa khaladaad annaga naga dhex jira inay saldhig u tahay khaladaadkaas wuxuu ku baahay qayb kasta oo bulshada ah laakiin qayb kasta oo bulshada waxaa saldhig u ah hoggaanka siyaasadeed marka runtii cid kasta oo siyaasadda ka soo shaqaysay ama hadda ku jirta eedaas kaba gilgilan kartay waa ku tiran tahay inay ku dhiirato in ay ka gaabisay oo ay khalad jirana way fiican tahay maxaa yeelay xalkaa imaanaya runtii waxaan ilaahay ka rajaynayaa idinkana aan inaga codsanaya bisha Ramadaan inaad Soomaali u duceysaan oo xaaladda ay ku jirto ilaahay ka dul saaro halistii markuu dalka burburayay 90kii iyo muddadii ka horreysay ee dagaalkii qabooba ahaa ee qayb badan ka burburkeena saldhigga u ahayd baan waxaan sugnay 30 iyo dhowr sano intuu kii labaad imaanay hadda kii kale aan ugu dul dhashay khataro kale oo baahsan oo ka baxsan khilaafaadka dhexdeena ka jiray baa geeyo ku wareegsan oo naftirkeeda markuu kaasi jiro waa adag tahay xalalka naftirkooda oo xalku waa sii dheeraada marka hadda waa curdin waa bilow geesa lama bixin fursadda aan haysanna aad bay u yartahay fursadda aan haysanna waxa weeye dadka Soomaaliyeed hadda inta goorgoorta inay dhinac isu raacaan oo khilaafaadka dhexdooda yaala dhinac iska dhigaan oo ay ka heshiiyaan siday hore ugu socon lahaayeen aniga hal fariin baan in farayaa in aan ka wada shaqeyno dalkan waxaan ku heshiinay markaan duruufaheena aragnay dastuur ku salaysan nidaam federaal ah oo dadkeena isku haynaya oo horumarkeena saldhig u noqon kara khaladaadka dadka markaa mas'uuliyadda haya ama hay'adaha dawladda ka dhacaya waa wax iska sii soconaya waqti u baahan maxaa yeelay waqti dheer baan dawladnimada ka maqnay laakiin qodobka ku saabsan inaan ismaamulno oo nidaamka dawliga ah ilaalino inaan ku faraacdeegno waad ogtihiin labadii heer ee federaalku sameeyay dagaal baa lagula jiraa Puntland waxa lagula dagaalamay Jubbaland lagula dagaalamayaa maamulka aad leedihiin oo nidaamka federaalka ay siiyay ha ku dhaqmin oo ha ku shaqeynina ani tafsiir kale waa u waay kuwii kalena waa laga adkaado haddii waa aragtaan iyagoo bilaa sharci iska fadhiyaan marka dawladda hadda jirta ulajeedadooda waxa weeye nidaamka federaalka inay dudumiso halkaas
halkaas halkaas fariin baa ina farayaa in halkaas laga hortago bes waxa kale waa secondary waxa kale oo dhan macno ma leh oo dadka maskaxdiisa ka guuxaya waxaa intaa ka daran dabaqadii waxgaradka ahayd ee dadka Soomaaliyeed gudaha joogay kuwa dibadda joogaba waxaa la geliyay isnacayb iyo hadallo iska hor imaanaya iyo wax hadda magaciisa inuu si xun u dhadhamo aan u malaynayo narrative baad maqlaysaa maanta dhalinyaro yar oo ka sheekeynaysa war waxa kan maxay tahay ma been baa maanta dhan ummaddan lagu dhaqi karaa oo dad lagu dhisi karaa oo dad lagu hogaamin karaa madax baa intay meel fadhiisato hadallo been waxa lagu leeyahay public opinion kan jiheynina war maxaa jihaysaa dadkan gaajaysan oo tabaalaysan oo biyaha la oo meel walba argagixisada ku haysato oo gidaar walba loo taagan yahay maxaa jihaysaa marka ma in Facebook laga amaanaa jihayn ah ma in dadka been ah ku sarqaysid baa jihayn ah aan waxaan oran lahaa dabcan qofka bini aadanka hadduu madaxa ka bukoodo waa meesha ugu daran caasimadii ayaa hadda bugta dadka inaan aragnaan u baahannahay dadka inaan la hadalnaan u baahannahay beentana laga sheegaya inaan iska dhaqno runta inay sheegnaan rabnaa hadday sidii la oran jiray la yiraahdo dhag walba afkeeda ha maqashana waa talo aan haddeertaan suubanayn oo hadda khatarteeda dhacaysa marka waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed iyagoo isla jooga ha wada hadlaan nimankan Facebook-yada mararka qaarkood fariimaha ka soo dira macno sabayn mayso maxaa yeelay dadku markuu joogo isfahmaa markaad qofka wax ku eedeysid oo ku yiraahdo war eedaa malihi inaad garowsataaba dhici karto Soomaa laakiin hadduu adiga eed u sheegtid waxa kaliya filays waxa way adna inuu eed ku soo gudbiyo kula garnaqsan maayo marka waxaan qabaa hawadayeenan ka wada hadal leh dadkan ha wada hadla dib u heshiisiin iyo wada hadal bay u baahan tahay waan ku faraxsanahay madax badan oo xilliyadii siyaasadda soo maray isdiidanaa hadda miisaskan inay wada fadhiyaan oo ay gacmo dheer iyo Axmed Cabdisalaam baa ila fadhiyay oo marxaladahaas qayb ka ahaa idinkana saas ay isugu dhex jirtaan baan u malaynayaa hadda annaga hadda macno samayn mayso markaan ka dhacnay intaan soo dhex fariisano dhahno waa isnaqaani intaan talada haynaa la rabaa inaan wax soo kordhino marka aniga ahaan iyo Puntland ahaan waxaan diyaar u nahay Soomaali samanta bixinteeda inaan qayb ka noqono weliba caasimadda inaan dad badan baan wallahi xajacbanahay horta kuwa hadda madax sheegto sidaan arkay u galay inay reer xamar hayn bay sheegtay oo dadkii baabi'iyay kuwaas anaa uga xajacla badnaan lahaa tala badan uma hayaan waxaan arkay wax lagu farxo maaha dadkii xamar iyo nolosheeda yaqaanay waxa maanta ka jira runtii waan dareemayaa inuu nin walba intuu quustay gurigiisa hoosta ka xirtay waa u garaabayaa runtii dad aan eedeynayo ma jirto maxaa yeelay markay dhib ku bato qofba qof buu tuhmaya dadkiina waa la iska wada horkeen marka waxaad moodaa qofba qof inuu sugayo intuu dhaqaaqayo laakiin waxaan aniga fariinteeda oran lahayd dalkan xogogaal baan ahay halis badan baa ii muuqata halis badan oo weliba dadka Soomaaliyeed dhexdeeda ahayn baa ii muuqata oo khatarteeda leh dayaca iyo kala daadsanaanta yaan laga faa'iideysan aan isdaba qaban in la heshiiyo ayuu dalka dantiisa ku jirtaa runtii annaga dhab uu naga yahay heshiisku dalkan inaan culays kale uu sii fuulin baana danqaysa dadka halka jooga oo deegaanada hadda Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka soo jeeda runtii inay gaaraan inay waxba qaban waayaan oo indhaha ka fiirsadaan caloosha uurka ka nacaan iyada naftirkeeda ciqaaba Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo doorashada qabsadaan madaxweynayaasha hadda jooga xilka ku dhamaaday runtii taariikh adag baa inay haysataa waan ka xumahay saaxiibaday inaan halka kala hadlay laakiin laba heer baan kala noqono hadda anna waa la soo doortay iyagana weli waxay ku sii joogaan doorasho la'aan taasaa keentay inaan golaha mustaqbalka annagu ka tirsanaano oo iyagii aan kala wareegno halka uu socdo dalku marka waa kala qaybsanaan habkii maamulka waana khatar awal tii hore waxay kaga duwaneed maamulka is hayay isteediyada iyo dowladda federaalka isku hayay hannaanka doorashada heshiis aan fiicnayna waa la gaaray fulin aan fiicnayna waa dhacday laakiin waxaan islahayn natiijadii la malaynaysa waa laga gaaray xildhibaanana waa soo baxeen madaxweyne ka mid ahaa
dadkaas isbeddelka raadinaya wuu soo baxay maxaa ka dambeeyey weye marka waxaa dhacay waa u baahan runtii in la milicsado ani waxaan isleeyahay dee hadda madaxweynaha hadal uma dhinno waa lala hadlay kor iyo hoosba waa loola hadlay akhyaartan qof aanan la hadal iyo in badan ma jirto waxaa dhiman un waa ficil tii ilaahay iyadoo meesheeda jirto waxaan dhihi lahaa inta hadda la joogo aan isugu tagno in laga heshiiyo doorashooyinkooda qabsooma kolley doorashooyin saxa oo fiican weli ma dhacayaan oo duleelo waa jirayaan lagumana eedaynayo hadda maamulkaa waxa jiro duubtaa keenin laakiin in la dareero oo doorasho loo dareero daawo waa ku jirta cakirnaantaa baxaysa dadka waxaa samaysmaya isbeddel runtii khatarta dalka laba khatarood xoog bay u soo socdaa dalkan inuu kala irdhoobo kala tago khatar xoog baa ka jirta oo qofkii mugsan uu garan karo khatarta kaleeta kadib waxa weeye haddii xataa mas-uuliyiintan intay kala irdhoobaan reere noqdaan weli caayma weeye dad aan la garanayn dalkan inay qabsadaanna khatar kaleeto khatartaas xoog bay leedahay ciddaa dareemaysaa dareemaysa runtii dagaalkii calmistigaa ka dhacay annaga fajiciisu nagu noqdo dadka halkaas joogay buuraha aragteen mexico iyo venezuela ku jiray dadkaas latin america waa soomaaliya xukun u soo dooranaysa weligaanu kuma rido al-shabaab qarsay noqdeen wiilal soomaaliyeed oo hebel iyo hebel loo garanayay ba ahaayeen ajaanib runtii aad awoodda ay lahaayeen iyo imkaaniyaadka haysteen anagu aan la yaabo waan filayaa wax hadda aan la garanayn oo xilligeeda la sheegi doono badan baa ku jira marka puntland halkaa intaas oo weliba dhul furan oo laysku socdo uu ahaa ay ka dhacday maxaa ka malaynaysaan gobolladan hadda la yidhaha soo abahaysa wax dhexda u jooga maxaa ka taqaanaa markaa u tagtaan waxa aad malaynaysa wax ka duwan baa ugu tegaysa waxaan annaga u tagnay warshado hubka sameeya waxaan u tagnay misleedihiin buurahaas baa MRI iyo CT scan iyo yaalaan oo highly qualified doctors joogaan waa muuqatay in laga rabay in meel caasimad u noqoto inay ahaato markaan sambalkaas oo weliba aad u yar oo weliba ishu aysan qabanayn idinku waa garanayseen dalka intaas waa sidaa loo sameeyey maxaa yeelay bad aad u furan baynu leenahay hadda meeshan aan joogno badda ku xeeran waxa ka dhacaya dee qolyahan ajaanibtoona la jooga inay gartaan waa dhici kartaa laakiin dowladda soomaaliyeed war uma hayso wax ka socda waxa kanna waxba ay sugan waa huba kabarro dowladood inay ku jiraan waxyaabahan hadda socda waana xaqiiq waxa loo socdana waa dhulka waxaan ugu tagnay macmallo iyo warshado macdanta safeeya oo meesha ku jira waxyaabo yaablaa dalka ka jira caqabad baan kala kulannay dowladdii federaalka oo na matalaysa meesha gacan lagu siinay waa dhibaato jirta dal aan wada socon lama wada ilaalin karo waxa annaga aan ka digayno oo runtii halka u nimid oo duruuftaas aad aragteen lagu yimid oo madaxweynaha jubbaland uu halka u yimid iyadoo wixii ka dhacay raaskaambooni la garanayo oo diyaaradihii ciidamadeena saarnaayeen wixii ku dhacay la garanayo waxaan u nimid oo weli u fadhinaa weli laxa jeclaan dareemaynaa waxaan ognahay dadka soomaaliyeed ee halka jooga xataa kuwa dowladda federaal ku jiro 90% inaysan ka warqabin raallina ka ahayn dareenkaasa halkan ugu haya dad yaroo kooban oo iyaguna ama war aan hayn ama damac uu madax maray oo waxa ay raadinayaan aan garanayn un baan isleeyahay oo iyagana aan isleeyahay haddii la isugu tago waa la qaban karaa waa dadkeena waxaa ogaataan marar horena waa sheegay 4 sano ka hor xukun iyo nidaam qalloocan baa la isku hayay laakiin hadda khatar waxaa ugu jirta dalka in la kala waayo macalis kale marka dareenkaas annagu waa qabnaa waan u joognaa ilaahay idankiis waana jeclaan lahaa maanta sida gabadha halka sheegtay xafladda tan inay ka dhacdo wadaag baan aad u jeclaan lahaa dadkan waxay u baahan yihiin in calooshooda la isku furo oo taladooda la isku furo oo dadkan ay noqdaan dad mida waa dad walaalaha wax ka dhaxeeya ma jiraan
runtii dadka mararka qaybtood dhibaatada sheeganaya qof kasta meeshiisa ku danqaysa haddii hadda la yidhaahdo dhulkii dowladda leh oo dadkan degan dowladda kama mid aha miya naftirkooda soo dadka dowladda ugu nugul oo in la xanaaneeyo u baahna ayaga ma ahayn anigu markii hore waxay dhihi jireen dowladda u baahato dhulkii dowladda waa gaday war baan iska aamusi jiray markaa xagga jooga laakiin maalin dhoweed markaan meesha sii maray war wixii ay ka gaday xataa maxay jidka ugu hagaajin weyda dhulka ugu hagaajin weydaas ilaa wixii meeyeen naftirkooda haddii dadkii laga qaaday haddii la dhowr waa laga qaado waxaana lagu qabta xataa tale ahaan lahayd sooma taa xataa ma muuqato laakiin anigu waxaaba ku talinayaa dhulka iyo dadka waxaa ka muhiimsan dowladnimada iyo qarannimada aan ilaalino khaladaad badan way dhacayaan laakiin nidaamka dawliga aan ku faracdayno oo dowladnimo runtii mustaqbalkeena dhista aan ku faracdayno marka waxaan odhan lahaa weli hawshu waa dhowdahay dadku waa ismaqlayaa wax isu sheego in lagu dhiirado ay rabtaa oo hadda aniga fariin u hartay oo aan garanayo ma jirto meediyaha waan maqlaa dad badan oo halka hadlay meediyaha loo wada mariyo dalka sidaa laga daa hadday culummo tahay hadday waxbaro tahay hadday aqoonyaha tahay laakiin waxaan u baahannahay hab ka abaabulan sidaasoo inaan heshiis ku noqonno dalkan in doorasho la geliyo weliba runtii arrintaas waxaan isleeyahay waa sahlan tahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada harsan iyagay mas-uuliyadda saaranta oo dadku doorteen inkastoo hadda waktigii ka dhammaaday laakiin haddana vaakum ma jiro iyagaa meeshii jooga dalka doorasho ha geliyaan oo sharciga dadku leeyahay ha ku geliyaan dastuurkan halkan lagu malmalooqaayo oo dadka la leeyahay ma tegi kartaan oo maalin walba maaragtay dagaalku ka dhacayo ciduu dastuur u noqonayo male run baa idin sheegay madaxweyne xasan sheekh iyo aadan madoobe hadduu dastuur u noqonayo iyagay jirta anu ma garanayo ciduu kale u noqonayo mar hadduusan u noqonayn oo dadku heshiis ku noqonaynin wixii yaraa oo aan heshiiska ku hayn oo hore aynu ku dhaqanno inta aan heshiis buuxa ka gaarayn laakiin inuu federaalka guddoomiyo dadka soomaaliyeed khatar bay ugu jireen annaga insha allah aniga iyo golaha mustaqbal hadda codkooda ku hadli maayo iga soo fuulan oo waxaan sifo shaksi ah ayaan isku casumay laakiin waxaan idin caddaynayaa dadkaas dulqaadka muujiyeen runtii taariikhdaa sheegi doonta weliba xubnaha golaha ka tirsan ee muqdisho joogay dulqaadka iyo dhabar adeega iyo sabarka ay sameeyeen waa uga mahad celinaya runtii meeshaas in la soo gaaran iyagaa sabab u ah cidda dagaalka ka cararaysa oo burburka ka cararaysa ogaada waa golaha mustaqbal dhinaca kale waxaa moodaa in sanka laga gelgelinayo in dalku meel xun gaaro marka waxaan odhan lahaa insha allah sidaa la sheegay haddii shirarkaas ay guul ku soo dhammaadaanna waa guul aan wada leenahay haddii mudmadow aan dareemanna aniga oo golaha mustaqbalka la soconnaa nagu soo noqon doono waynu ka wada shaqaynaynaa haddii ilaahay sidii dalka loo samata bixin lahaa